salaamullaahi calaykum saaxiibada qiimaha iyo qaayaha inaga mudan halkan waa raadiyaha iyo TV-ga caalamiga hami xaruntiisa magaalada beledweyne waxaad ku soo dhawaataan qodobada warkiyaga kuwa ugu dooran shirka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo madaxda dawlad goboleedyada oo heshiis hor u dhaca laga gaaray maamulka Galmudug oo ballanqaad u sameeyay ganacsatadii goobihii ganacsi ee shalay gubtay kumaandooska Soomaaliya oo dagaal kula wareegay deegaanka ka tirsan Jubbada Hoose Mareykanka oo sheegay in la kordhin doono duqeymaha ay la beegsadaan saldhigyada Al-Shabaab iyo Daacish ee Soomaaliya iyo Ruushka oo wada hadal nabadeed u furayo wadamada Armenia iyo Azerbaijan qodobadaasi iyo kuwa kale oo fidsan gordhow diyaar garooba markale isku soo noqod wacan maalinimadu waa Khamiis taariikhdu ku beegan tahay 1 bisha Oktoobar sanadka 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan ayna ku bilownay shirka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo madaxda dawlad goboleedyada oo heshiis hor u dhaca laga gaaray wararka soo baxaya ayaa sheegaya in shirka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo madaxda dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir uu haatan marayo meel wanaagsan isla markaana la filayo in saacadaha foodii nagu soo haya la soo gabagabeeyo ila xog ogaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in isfahan laga gaaray dhismaha 3 guddi oo kala shaqeyn doona arrimaha doorashada kuwaasi oo kala ah guddiga doorashada heer federaal guddiga doorashada heer gobol iyo guddiga xalinta khilaafaadka labada guddi ee heer federaal iyo heer gobol ayaa qorshe u yahay inay si wadajir ah u maamulaan doorashada wararka ayaa intaa ku daraya in guddiga xalinta khilaafaadka uu magacaabi doono madaxweyne Farmaajo hase yeeshee waxaa xubno ku yeelan doona maamul goboleedyada sidoo kale labada guddi ee kale doorashada ay kala magacaabi doonaan madaxweynaha iyo madaxda dawlad goboleedyada dhinaca kale maamulka Galmudug oo ballanqaad u sameeyay ganacsatadii goobihii ganacsi ee shalay gubtay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa soo kormeeray xarumo ganacsi oo ku gubtay barqanimadii shalay ka kacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug waxa uuna tilmaamay Cali Daahir Ciid madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug in madaxda maamulka Galmudug ay aad uga xun yihiin khasaaraha soo gaaray ganacsatadii iska lahayd goobihii shalay dabka ku basbeelay waxa uu sheegay in lacag dhan 22,000 oo dollar ay ugu deeqday Galmudug guddiga ganacsatada ee ku howlan soo iibinta gaadiidka dabdamiska ee ay yeelanayso magaalada Dhuusamareeb sidoo kalena isaga oo intaa ku daray in canshuur dhaaf loo sameyn doono sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa ganacsatada Galmudug gaar ahaan kuwa Dhuusamareeb ugu baaqay in loo gurmado ganacsatadii shalay hantidoodu ku waayay dabkii ka kacay magaalada Dhuusamareeb kormeerkii gelinkii dambe ee shalay madaxweyne ku-xigeenka uu ku tagay goobihii uu dabka ka kacay ayaa waxaa ku welinayay wasiirka cadaaladda wasiir ku-xigeenka maaliyadda iyo wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada iyo maamulka caasimadda Dhuusamareeb deegaanada maamulka Galmudug ayaa bilihii ugu dambeeyay waxaa ku soo badanayay dabka siyaabaha kala duwan uga kaca waxaase dhibta ugu weyn ay ka jirtaa gaadiid ka bixiya adeegyada gargaarka degdega ah ee dabdamiska oo aysan lahayn taasi oo inta badan sababta inay korodhaan khasaaraha dabka uu geysto geesta kale kumaandooska Soomaaliya oo dagaal kula wareegay deegaanka ka tirsan Jubbada Hoose ciidamo ka tirsan kumaandooska Soomaaliya ayaa weerar ay ku qaadeen Al-Shabaab waxa ay kala wareegeen deegaanka ka tirsan gobolka Jubbada Hoose deegaanada ay ciidamadani dagaalka kula wareegeen ayaa waxaa ka mid ah Kartiin Bernesey Waraaboole Cusbo Xawaljiri oo dhammaantood hoostaga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose saraakiil ka tirsan kumaandooska Soomaaliya gaar ahaan kuwa danab ayaa sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen dagaalka isla markaana kuwa kale ay nolosha ku qabteen war qoraal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada danab ee ku sugan gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in Al-Shabaab ay dadka lacag ka qaadi jireen deegaanada ay ku sugan yihiin isla markaana shacabka ay dhibaato kala kulmi jireen Al-Shabaab waa sida ay hadalka u dhigeen inkastoo aysan jirin in Al-Shabaab ay weli ka jawaab celiyaan guulaha ay danab ka sheeganayso gobolka Jubbada Hoose Mareykanka oo sheegay in la kordhin doono duqeymaha ay la beegsadaan saldhigyada Al-Shabaab iyo Daacish ee Soomaaliya dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay sii kordhin doonto duqeymaha lala beegsado Al-Shabaab iyo taageerida dowladda federaalka Soomaaliya taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa ugu baaqay in la kordhiyo cadaadiska la saaro ururka Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen kan ugu halista badan xilligan qaaradda Afrika
sidoo kale Africom ayaa ku baaqay in la xoojinayo dagaalka iyo duqeymaha lala beegsado xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Daesh. Africom ayaa waxa ay sheegtay in Al-Shabaab ay halis ku yihiin ciidamada Soomaaliya, kuwa AMISOM iyo danaha Mareykanka intuba. Al-Shabaab ayaa lagala wareegay deegaano ka tirsan koonfurta dalka Soomaaliya, waxaana khasaare ay kala kulmeen duqeymaha isdaba joogga ah ee ay fuliyaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ay leedahay Mareykanka. Geesta kale, Raashiya oo wada hadal nabadeed u furaya wadamada Armenia iyo Azerbaijan. Raashka ayaa ku baaqay inuu martigelinayo wada hadal nabadeed oo xal loogu raadinayo xiisada ka soo cusboonaatay wadamada Armenia iyo Azerbaijan. Labadani wadan ayaa ku murunsan gobolka Nagorno-Karabakh, halkaasi oo dhowr jeer uu dagaal ku dhex maray. Xafiiska wasiirka arrimaha dibadda Raashiya, Sergey Lavrov, ayaa sheegay in wasiirkani uu qadka taleefanka kula hadlay labada dowladood. In ka badan 100 ruux ayaa ku dhintay dagaalkii socday tan iyo Axaddii aynu soo gudubnay, iyadoo dagaalkani uu socdo uu noqonayo kii ugu xumaa ee labada dhinac dhex mara muddo sanooyin ah. Sidoo kale, madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin ayaa dhankiisa Faransiiska Emmanuel Macron kala hadlay sidii xabad joojin degdeg ah loo kala dhexdhigi lahaa labada dowladood ee deriska ah, waa Azerbaijan iyo Armenia. Ugu dambeystii, Trump oo weerar hor leh oo afka ah ku qaaday Ilhaan Cumar. Madaxweynaha mayalka adag ee Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale weerar afka ah ku qaaday Ilhaan Cumar oo ka tirsan Koongareeska Mareykanka. Waxa uu sheegay in Ilhaan ay tahay qof musuqmaasuq badan, isla markaana warbixinadeeda uu la socdo muddo 2 sano ah. Maxaa ka qaldan Ilhaan Cumar? Waxaan rajaynayaa in hawshani uu soo faragelin doono xeer ilaaliyaha guud. Waxaan akhriyay warbixinteeda muddo 2 sano ah oo ku saabsan sida ay u musuqmaasuq badan tahay. Miyaad rumaysanaanaysaan? Sidaasi ayay weliba inoogu sheegaysaa sida dal loo maamulo. Waa maxay waxa ay samaysay qofkii ay reer Minnesota doorteen? Maxaa baas ee idinka qaldan dad yahow, ayuu yiri Trump. Dhanka kale, Trump waxa uu musharaxa madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden ku eedeeyay in gobolka Minnesota uu doonayo inuu ka dhigo xero qaxooti. Waxa uu sidoo kale sheegay in Biden uu doonayo inuu meesha ka saaro xayiraadaha dhanka safarada ee lagu soo rogay muwaadiniinta ka yimaada dalalku ay colaaduhu ragaadiyeen. 70% kororka dadka qaxootiga ah oo ka kala yimaada dalalka ugu khatarta badan adduunka oo ay ka mid yihiin Yemen, Suuriya, Soomaaliya. Biden waxa uu bedeli doonaa Minnesota xero qaxooti ah oo dugsiyada iyo cisbitaalada ciriiri yihiin, ayuu hadalkiisa ku diray Trump. Hadalkani ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump waxa uu ka sheegay xilli muddo ahba kadib uu booqasho ku tagay gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka, taasi oo qayb ka ah ololihiisa doorasho kadib doodii kululeyd ee habeen ka hor dhex martay isaga iyo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ku hardamaya, waa Joe Biden. Saaxiibada aynu jecelnahay, intaa ayaan ku soo afmeeraynaa qodobadii inaga soo gaaray dal iyo dibad kuwii ugu dooroonaa oo aad kala socoteen raadiyaha iyo TV-ga caalamiga Hami xaruntiisa magaalada Beledweyne. Warsoo jeediyuhu waa anigu Ibraahim Jamuni. Tan iyo warkaan mid lacayna intaan dib kaga kulmayno waxaanu idinkaga tagaynaa nooli kulante. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.